السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني waxaan ku jirnaa weli kala duwanaanshaha waxbarashada ee wadamada reer galbeedka usoo guurnay iyo wadankanagii hore nooga soo hadalay. Waxaan ka hadalnoo kale barnaamijyada ama arrimaha saameynta ku yeesha waxbarashada ilmaha Soomaaliyeed wadamada qurbaha reer galbeedka usoo qaxay. wadamada saan xalay tooga hadalnay kaliibkanagii hore arrimaha saameynta ku yeesha waxbarashada caruurta way fara badan yihiin. kow midda xalay ka hadalna waxaa ka mid ahayd dadaalka waalidka oo saan xalay dhowr jeer dul istaagnay. dadaalka waalidka oo aada u wanaagsan waxaa laga dareemayaa natiijada cunuga. dadaalka waalidka oo aada u hooseeya ama waqti badan aan la gelinin waxaa laga dareemayaa natiijada cunuga. saan mar hore u sheegnay marka dadaalka ama waxyaalaha haddii positive yihiin cunuga laga dareemayaa. haddii waxyaalaha saameynta ku yeel ee wax wanaagsan ay ahayn cunuga natiijadiisa iyo waxbarashadiisa laga dareemayaa. xalayta marka waxaan ka hadalnay kaliibkanaga hore dadaalka waalidka saameynta cunuga uu ku yeesho maskixiyan iyo maada ahaanba. waxaan rabnaa inaan ka hadalno kaasoo qodobkii koowaad xalayta aan ka hadalnay ahaa dadaalka waalidka. waxaan ka hadlaynaa guurguuritaanka qoysaska Soomaaliyeed saameynta uu ku yeesho waxbarashada ilmaha Soomaaliyeed ee wadamada reer galbeedka. saad ogtihiin anigu dee Soomaali waxaan nahay dad iska reer guuraa ah. haddaan dalkii joognay haddaan wadanka qurbahana weli waynala soo goortay dhaqankii ahaa reer guuraagii. waxaan nahay guuru hadegan dadkii la dhihi jiray oo aan dee meel laba aan salka dhiganaynin inta badan waalidiinta Soomaaliyeed. maanaha inaan negatifyada waalidiinta inaan ka hadlayna laakiin anaga waxaan nahay dad ka shaqeeya maraadista amin institutionada waxbarasho iskuullada ka shaqeeya. haddii kuwa hoose yihiin iyo haddii kuwa dhaxaba yihiin. dee wadankiina waan deganahay guud ahaan wadanka waan deganahay. dee guud ahaan wadamada reer galbeedka oo dhan waa isku dhaqan waa mid Soomaali meel joogto waa isku dhaqan. saan ognahay inta badan sanadihii u dambeysay waqtiyadii u dambeysay waxaa batay guurguuritaanka qoysaska Soomaaliyeed aada u batay. waxaa arkay qoysas fara badan oo Mareykan ka soo guuray oo dalkii Soomaaliya u noqday. waxaa arkaysa qoysas fara badan oo Mareykan ka soo guuray oo u guuray Egypt. wadamada fara badan waxaa arkaysaa Soomaali qoysas fara badan Scandinavian ka guuray oo u guuray wadamada Carabta. waagii wadanka Syria nabadda ahay loo guuri jiray. hadda laakiin Egypt yaa loo guuraa, waxaa loo guuraa Turkiga loo guuraa, waxaa loo guuraa Malaysia loo guuraa, dalkanaga Soomaaliya loo guuraa, wadamada Yurub dhexdooda loo kala guuraa. oo haddaan anaga wadamada dadka degan Scandinavian-ka aan nahay inta badan waxaan u guurnaa Ingiriiska. laakiin waxyaalaha fara badan dee waalidka uu ku riyoonay oo rabo cunugiisa inuu u raro wadan islaameed ama wadankiisa hooyso dhaqankii ama maadooyinka uu usoo barto waxbarasho zaid usoo barto. riyada faraha badan ee waalidiinta ay ku riyoonayaan inta badan kuma guuleystaan. waxaa arkaysaa qoysaskii shalayta guuray hal sano ama hal sano kadib inay haddana dib usoo noqdaan oo wadamadii ka guurin ay dib ugu soo noqdaan. taas waxaa sababay dee hungooga ay ku hungooyeen wixii ay filayeen. haddii ay tahay cunugii inay ama gabadhii inay dhaqankii bartaan oo laga yaabo ilmaha si loogu talagalay inaan dhaqanka u baranin. laga yaabo maadahaan ay lahaayeen dee wadankaad kasoo guurtay maadadiisii waxbarashada waxaa ka wanaagsan wadanka Masar ama Soomaaliya ama Malaysia ama Turkiga. oo ay kadib arkaan cunugii waxbarashadiisii inaan waxyaalo badan iska bedelin oo haddana dib usoo guuraan. waxaa laga yaabaa dee dhaqaale ahaan wadankii waalidkii inuuna deganaan karin 4 sano 5 sano inuu Egypt ama Turkiga ama Malaysia ama Soomaaliya una deganaan karin. kaasoo laga yaabo dee intact inuun wadankii ku lahayn uu u guuray dhaqaale ahaan ku adkaanaysa marka inuu qoyskii in badan sii deganaado. laga yaabo dee ilmo waaweyn oo jaamacad iyo college dhigtan in laga soo guuray oo kala maqnaanshaha faraha badan laftigooda ay dhibaato u keentay qoyskii laftigiisii iyo waxbarashadii caruurtaba. marka inta badan
guuritaanka faraha badan ee la guurayo ilmaha la rarayo ee la rabo in waxbarashadoodii lasoo kordhiyo ama dhaqankoodii lasoo bedelo, ilmaha waxay ku dhexdhexaan badweyn oo ay ku wareeraan nidaamyada waxbarasho ee kala duwan wadamada loo guuray. dee wadamadu isku nidaam ma aha, isku manhaj maaha wadamada, systemka waxbarasho isku mid maaha. haddaad wadanka Norway ka guurtood hadda ingiriiska u guurtid waa kala manhaj dabcan, waa kala luuqad. haddaad hadda ingiriiska ku guurtood hadda Soomaaliya u guurto, Soomaaliya iyo ingiriiska waa kala manhaj waana kala luuqad. waxaa laga yaabaa xamar haddaad ilmihii geyso labadii dugsi sare isku dhegan ee kala magaca laba manhaj oo kala duwan ay haystaan. saa ognahay wadankii Soomaaliya saa ogtihiin laga soo bilaabo kacaankii dowladdii dhacday, manhaj midaysan oo dowladda ay ku midaysan tahay ama dowladda oo waxbarashada iskuulaadka gacanta ku haysa ma jirto. taa marka waxay sababaysaa labada iskuul ee isku dhegan inay kala manhaj yihiin, muqdisho iyo garowe inay kala manhaj yihiin, muqdisho iyo hargeysa inay kala manhaj yihiin, hargeysa laftigeeda iskuullada ka jiran inay kala manhaj yihiin oo iskuul walbaba uu ku xiran yahay wadan kale oo iska suurtagal. wayna tahay dee xaqiiqadii dee manhaj midaysan dalkii Soomaaliya ma laha. cunugii marka wuxuu ka leeyahay jahwareer fara badan oo ku wareeraya manhajyadan faraha badan oo dhex dabaalanayo. kadib maxay qasbaysaa reerkii inay dib intay usoo noqdaan wadankay ka guureen ama Mareykan ama Yurub ha ahaato inay dib ugu soo noqdaan. waxaas marka waxay sababaysaa marka in ilmihii waxbarashadooda ay hoos u dhacdo, maadaama dee wadamo kala duwan u guuray, nidaamyo fara badan oo manhajyo kala duwan cunugii madaxa la galay, luuqadyo kala duwan oo Carabi iyo Ingiriis iyo Soomaali kala duwan iyo af Norwegian iyo Swedish uu madaxii la galay, in waxbarashadii totally cunugii hoos u dhacdo. waxaa marka muhiim ah cunugan aad wadatid adigu waa shay dee neef xoolood intaad xarig ku xirata marba meel u kaxaysanaysa maaha. waa qof bilowdana waa mustaqbalkii beri cunugan wuxuu mustaqbal u yahay dee mujtamaca uu ku dhex jiro iyo ummaddu ka dhasho mustaqbal u yahay. adigu wuxuu ku yahay caymis. dee wadamada reer galbeedka anaga aan joogno waxaa jira hadduu waalidka duqoobo kale dee system dhaqaaliyaa jira ilaa uu ka dhimanayo qofka. laakiin anaga haddaan muslimiinna ama Soomaali nahay caymiska keli aan leenahay waa inaad cunugaaga waqti badan gelisid, waxbarashada ugu wanaagsan aad gelisid, si beri markaad duqowdo adigu uu ku anfaco, adigana ku anfaco, naftiisana u anfaco, ilmihiisa u anfaco, mujtamaca uu ku jiran uu anfaco. haddii marka maalinba meel loo guuro cunugii loo raro dhibaatooyinka fara badan bay leedahay. kasoo qaad cunugii maleeshiyaadkiisa hadda wuxuu ku soo qaatay wadanka ingiriiska ka guurtay ama Scandinavian ama Mareykan, Masar aad geysay ama waxaad geysay Malaysia geysay ama Turkiga aad geysay. jaamacaddii shahaadadii koowaad iyo tii labaad wuxuu ka soo qaatay Malaysia ama wuxuu ka soo qaatay Egypt ka soo qaatay. shahaadada labaad ee masterkii waxaas uu ka soo qaatay Malaysia shaqo ma kaga helaa? may kagama helaayo. wadankii uu ku abtirsanayay baasaboorkiisa haystay ama wadamada reer galbeedka ha ahaato, markii uu kusoo noqdo shahaado uu haysto aqoonsi ma helaya? may uma helaya. shahaadadaas laftigeeda shaqo ma ku helaya? may kuma helayo. dalkii Soomaaliya hadduu maanta aado shahaadadii uu kaga soo baxay Egypt ama Malaysia ama Turkiga shaqo ma ku helaa? may kagama helaya. then what's the point marka inaad cunugaaga intaad wadankii ka rarto oo waxbarashadiisa aad dhalisho inaad Malaysia ka tuurtid ama Soomaaliya ka tuurto oo cunugii degree iyo master uu la imaado uuna shaqo ku helaynin, aqoonsi ku helaynin, wadankii kaga shaqaysan karin, cunuga mustaqbalkiisa mugdi ma gelisa mise maadan gelin. marka absolutely cunugan mustaqbalkiisa mugdi u galay asagoo weyn wadankii imaaday, aad ku soo celisay intaasoo sano wadankii ka maqnaa, Malaysia ku maqnaa, Turkiga ku maqnaa, shahaadooyin oo la imaaday, luqadii Norwegianka ma yaqaano, Ingiriiskii ma yaqaano. nin hadda isa soo dhiibay asagoo isku mid. shahaadada maxay taraysaa marka? dad badan oo soo qaxay shahaadooyin wata way jireen, haddana dee dhulka xaaqayo oo basas wada oo tagaasii wada oo ama waxbarashadii koow dib u bilaabay oo way jiraan. cunuga markii aad rabtay aad caymiska ku
ku ahaa ee beri inuu mustaqbalkaagii adi uu ku xanaaneeyo ilmihiisa xanaaneeyo naftiisa iyo mujtamac uu meel kaga soo baxo cunugii marka mustaqbalkiisi mugdi galaysaa marka iyo shaki fara badan haddii marka aanan shahaadooyinkii waxbarasho aan aqoonsi loo helinin shaqana lagu helinin it is good marka wadankaad adiga joogteed inaad cunugaaga waqti ku gelisid maxaa diidaya marka wadamadan aniga aan deganahay reer galbeedka ilmaha qur-aankii ku dhameeyey maadooyinkii digriga iyo masterkian ku qaatay adigana markaad ka qaxdo waxaad u qaxday wadan kale marka taa markan waxay ka cadeynaysaa haddii wadankaad adiga joogtaad cunugaadii waqti badan geliso oo dee mas-uuliyaddii waalidnimo iyo dadaalkii xali kaga sheekeynaynay aada la imaatid cunugaaga diintiina uu kuu baranayo dhaqankiina uu kuu baranayo maadahaana uu kuu baranayo inaad cunugaaga marka intaad la qaxdo oo la gurguurto oo manhaj cusub aad mar lugaha aada u gelisid idin inayna xal ahaynaan u malay ummadda soomaaliyeedna taas way ku badan tahay marka la fiiriyo wadamada reer galbeedka markaan anaga joogo gurguuritaankana aada u badan ingiriiska loo guuri waa lagu soo noqon sweden loo soo guuri denmark laga guuri ingiriiska loo guuri waa laga soo guuri holland lagu soo noqon waa laga guuri jarmalka loo guuri africa loo guuri wadamada turkiya loo guuri waxaasoo dhan cunuga aada gacanta wadatid ee caymiskaaga beri ahaa ee la rabay bulshada uu ku dhex nooli iyo naftiisa iyo caruurtiisa iyo adiga inuu wax ku taro ku xisaabtan inaad mustaqbalkiisa marka mugdi gelinaysa cunugaaga marka shaygan gurguritaanka ummadda soomaaliyeed waxaa la rabaa marka waalidkooda inayna ku baraarugaan inayna mustaqbal lahayn cunuga aada ka rartid wadankaaga haddii aada wadanka waxbarashadiisii dhaleeshay oo ay kugu adkaato cunuga inaad wadankii ku haysid ood la rabto mustaqbal iyo diin inaad la doonato wadankaad oo la gurtay ku joog dhib iyo dheef waxaad ku qabtaba dib ha ugu soo noqonayn wadankii laakiin cunug 25 jir 26 jir master wata markaad kusoo celiso Sweden ama Norway kusoo celiso Norwegian uunan aqoonin asoo yaroo dee underage aad wadankii ka saartay haddii cunugii marka intuu wax ka bilaabaya markaa luuqadiisiina ma yaqaano shahaadadii lama aqoonsanayo shaqo ma helayo dee cunugii marka waxay noqonaya marka mustaqbal badan oo dhumin ay noqoto wadankaad waqti badan gelisana shaqo kagama helayo deganaashana kaga heli maayo halkaasna yani intaad weligaa joogto iskamaba degaysaan mar walba waxaad niyad ku haysa inaad dib ugu soo noqoto wadankaad aad ka guurteed aad ku helahayd baasaboorka waxaana marka waalidiinta soomaaliyeed inaan ku dhiirageliyo marka in gurguritaanka faraha badan cunuga uuna mustaqbal u lahayn inay ahaato cunuga wadanka ay joogaan inay waqti ku geliyaan dadaal fara badan ku geliyaan korjoogteen fara badan ilmaha lagu sameeyo waxbarashadooda iyo cunuga lala socdo waxbarashadiisa diintiisa iyo qur-aankiisa wadamadan Scandinavianka ama wadamada reer galbeedka guud ahaan aan joogno madaaris iyo dugsiya ka furan yaanan ahaanin dee kuwanaga Soomaaliya kale laakiin madaaris wanaagsan ka furan oo dee cunugii diintii qur-aankii ku baranaya cunugii maalin sanadkii hore qur-aanka number 1 noqday Soomaaliga ahaa ee Minnesota ka yimid nin wuxuu ahaa wadanka Mareykanka ku dhashay ahaa dee waalidun buu gacanta ku hayso maaha marka waxay ku kala duwan yihiin waalidiinta ay ku kala duwan yihiin ilmaha maaha marka cunugaaga haddaad rabtid inuu mustaqbal yeesho diiniyan iyo maadiyan adeeg kugu xirantahay haddaad waalid tahay inaad waqti badan gelisid dadaal badan gelisid wada shaqaynta iskuulka aada wanaajisid wada shaqaynta adiga iyo ilmahaaga aada wanaajisid xiriirka aada wanaajisid waxyaalaha kale aan faa'iido badan aan ku lahayn inaad waqti badan ku dhumiso faa'iido badan kuguma jirto muhiimadda waxaa weeye inaad cunugaaga adiga gacanta ku dhigtid waqti badan aad u hortid ood gelisid saa daraaddeed marka waxaan waalidiinta Soomaaliyeed kala dardaarmayaa wadankaad u guurisay manhajkiisa ka fikir iyo systemka waxbarasheed wadanka u guurisid cunuga shaqo ma ku helayaa ha ama maya haddii uu ku helaynin wadankiisa cunuga ha ku nagaado hana ku joogo waqti badan geli assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu